runtii aad iyo aad baan soo dhaweynayaa waan u mahadnaqayaa dhammaan cid kastoo shirkan ka soo qayb gashay ugu horeeyay gudoomiyaha maxkamadda taliyaha qaybta booliiska gudoomiyaha maxkamadda racbaanka mabahda garsoorka heer degmo iyo heer gobol taliyayaasha saldhigyada ee ka soo qayb galay qolada secondaries-ka amba xuraanka oo iyaguna aad ugu mahadnaqayo waxaan u mahadnaqayaa qolada CID-da gobolka oo madaxdoodii cali ka joogo waxaan iyagana u mahadnaqayaa qolada sirdoonka qaranka Ibrahim iyo bahdiisa waxaan u mahadnaqayaa dhammaan xubnaha bahda nabadgelyada haday tahay guddida nabadgelyada dhammaantood si fiican ay u soo ajiibeen shirkan shirkayagana waa shirkan nooc duwan shirarkayga hore aan ka jirnay waxaan isugu nimid dhammaan gacmihii nabadgelyada gobolka hadday tahay guddi nabadgelyo hadday tahay traffic hadday tahay police hadday tahay garsoor hadday tahay xeeraalin dhinac kastaba waan isugu nimid maanta waxaana isu kaya keenay waa arrin amni darra ah oo ka jirta gobolka halkanna waxaanu ujeeddadaanu ka lahay inaanu ka tashanno digniinna aanu u fidinno waalidiinta ubadkaa dhashay carruurtaasi guryaha ka soo toosaan guryaha ka yimaadaan qalabkaa iyo baangayaasha iyo faashashka ay sitaan guryaha ku qariyaan waalid leeyihiin ka soo toosaan waxaan uga digaynaa waalidka iyo carruurtoodaas tallaabaa dawladdu qaadi doonta gobol ahaan guddi nabadgelye ahaan iyo maamul ahaan waxaanu qaadi doonaa tallaabadaas ka farxin mayso in badan oo waalidiina waxaan halkan u marinaynaa waalidka ilmihiisa hayn waaya waa loo haynayaa dawladda u haynaysa haddaa waalid oo haysan weydaan ilmihiinni annagaa idin haynaynaa waxaan idinku haynaynaa inaanu tarbiyadiisa dib ugu soo celinno inaanu asluubtiisa dib ugu soo celinno waxaan u haynaynaa inaanu dhibin dadka dariiqyada qaadacaldareed inaanu noqon waxaa burca ka dhaca oon hore uga dhici jirin in dhallinyaro teenage oo dhallinyaro ah oo 20 jirri oo wax barto arday intay go' dhigtaan streetyada burco ama wadooyinka burco qof kastoo soo mara inay yidhahdaan 2,000 kurri 2,000 shilin oo Soomaaliya kurri oo dadka baad kaga ururiyaan mid wadaada mid waayeela haweenkeeni hablaheeni in la yidhahdo $2,000 2,000 shilin halkaa kurri haddii kala dhaafi mayso haddii kala saacadda laga furo waxay doontaan lagu sameeyo socon mayso caqligalla maaha hablaheeni dahabkii baa laga furanayaa burcadeeda laga furanayaa waxay groups gangisa oo sita faashish midye sita soorar sita dadka baqdin gelinaya ayaa buuxa waxaan u digaynaa mar iyo lababa waalidkay ka koow waa u digaynaa waalidka ubadkiina ilaashada haysta waxaan kaloona u digaynaa cid kastoo ka ganacsata faashashka iyo baangayaasha la iibiyo kama keenaan cidda meheradaha burco ee iibiya faashashka iyo baangayaashana waa u digaynaa ciddaan ku helno oo iibinaya ama sool ama faash ama bakoorad torrey leh ama leh seef ee lagu qabto booliisku way maqlayaan tallaabaa laga qaadaya guddoomiye maxkamadda racbaanka maqlaya tallaabaa la marinaya waa criminal waa dambiili ninka waxaa iibinaya waxaanu kaloo u digaynaa qolooyinka dhalinyaro ah oo iyaguna nabadgelyada waxyaalaha habeenkii halkan bridgeka isku yimaada waxaa jira bahal lacab oo lagu saliday iminka dhalinyaradii oo iyaguna xabag la yidhaahdo waxaa iibiya meherado ka mid a magaalada burca iibiya kuwaasaa iibiya waxaan uga digaynaa iyagana meheradaha iibiya bahasha ama waxaa carruurteeda maankooda dooriya hadday tahay khamri hadday tahay drug kale hadday tahay xabag cid kastoo iibisa drugga maskaxda carruurteena doorinaya ee lagu qabto tallaabaa laga qaadi doonaa si sharci ah ayaa loo marin doonaa garsoorka kadibna wuxuu mudan doonaa ciqaab adag buu mudan doonaa wuxuu la mid noqon doonaa kaa qaata dariiqa waayo inan kan yari haddaanu hub uu isku taago waddada haddaanu helayn isku taagin waddada hubka nin meherad haystaa ka soo iibiya maskaxdiisa waxaa bedelan nin meherad haystaa ka soo iibiya marka waxaan uga digaynaa cid kastoo dadkaa ka ganacsada niman waaweyn waxaa la sheegaya magaalada ka tirsanoo waliba macruuf ah inay waxaa ka ganacsanay lacag ka helaan waxaasoo kale waa xaaraam inaad fasahaadiso ummadaada dadkaaga ubadkaaga waxaa laga yaaba guri baad ka soo turto carruur baad leedahay waxaad jecesha inuu kuu wanaagsanaado ilmahaagu jeclow ilmahaagu siduu doonaysa inuu wanaagsanaado
ilmaha saaxiibka walaalka inaad arkaan inuu wanaagsanado jeclo laakiin ha oran kaygina gurigan ku haysanaya kana xabad baan siinaya kana baangaan soo iibinaya kana isaga doonaya inaan oo business ka dhiganaya lacag ka dhaxasho waxaan yeelin weeye waxaan mar iyo lababa waan la imanaya areeraha laga fadhiyaa waxaan ka digaynaa in cid kastoo ku shuqul leh arrinta ka socota degmada Burco ee soo noqonaysa ee maalin walba habeen walba laga soo cabanayo cid kastoo ma aha inaan ka yar ma qabanayo cid kastoo u sibir saarno waan qabanaynaa saasaynu isku ogaanaynaa waa fariin intaan talaabo qaadin fariinta muddaanu siinayna muddada wax laga qabto oo waxaasi ku tanaasulaan waan eeg doonaa haddii kala talaabadeedu way adkaan